marka waxaan u jeedaa qiso aan in yar rabo inaan soo gaabiyo ayaan rabaa inaan in yar laba kelmadood ka iraahdo qisadaasi waxa weeyaan anoo jooga meel la yiraahdo Nidaamuddin waa xarunta tabliiqa tajdiidka juhdiga غير marquubinka ah oo ku taala India ayaan casar assalaamu calaykum markaan sidaa aan u tukanay baan waxaan arkay nin blue eyed ah oo European ah oo dhinacayga ku tukanaya markaasaan ku iri markaan salaadii adkaarti dhamaysanay baan ku iri kullay European baad u egtahay diinta kuma dhalanina ma ii sheegi kartaa sida diinta ku soo gashay markaasuu yiri waqti ma haysataa markaasuu aan ku iri ha waa haystaa qisada ma sheegi karaa barakallahu fiik marka waxaan wuxuu yiri anigu waxaan ahay German ku nin German ahay waxaan ahay buu mechanical engineer Philippine baan u guuray buu yiri waxaan guursaday qof dumar ah oo ah buduu diinta buduuga haysata wiil bay ii dhashay wiilkii markuu jaamacad levelkeeda gaaray wuuna dhibay iskuulkii si fiican jaamacadda u tagi maayo mukhadaraad arrimo waxa anagu la liidana umbu maanta dambe ii mid wuxuu yiri aad waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo diinta islaamka soo galo markaasaan ku yiri oo aabo diinuhu waa badan yihiin maxaad islaamka ku dooratay markaasuu yiri aabo wiilal baan jaamacadda la dhigtaa oo haddii ay aabo sheekeeyaan run bay sheegaan oo aabo haddii ballan galaan way oofiyaan oo aabo haddii nin miskiin arkaan way caawiyaan oo nin weyn haddii arkaan da'ah way xushmeeyaan mid yar haddii arkaan way u naxariistaan aabo sifooyinkaas intaan ku arkay baan jeclaystay sidaas awgeed diinta tan waa diin wanaagsan ii ogolow markaasaan ku yiri aabo you are a grown up man no impact your choice is your choice markaasuu laakiin hooya ii diidan oo maxay ku leedahay waxay tiri waraanaka diin saddexaad nala soo gali ama sida aabaha Kirista noqo ama sida anigu aan ahay buduunimada ila soo gal markaasuu masaas ku tir ha arina keen wuxuu yiri talaabada aan qaaday ee wiilka aan raacay baan u maleynay Ilaahay inuu igu naxariisto aniga islaamnimadan igu siiyay wuxuu yiri wiilkii ina keen baan ku yiri markaasaan islaamtu tiraya wiilkan ma kula hadlay markaas tiraha oo muxuu ku yiri sidaa oo maxaad ku tiri waxaan ku yiri anaka labada diimood mid saddex naga soo gal ee anigu diintan aad buduuga haysato markii aan ku guursanayay miyaan anigu kala hadlay markaasaan ay tiri maya haddana wiilkayga hayga hadlay diintu rabo ha qaato hayga hadlay wiilkii markii uu baa noloshiisa isbedeshay subaxii ninkii aanu anaku kicin kari weynay waa kacaya masaajid buu aadayaa wuu imanayaa quraac uu noo sameeyaa mom dad breakfast ready markaasaan gacanta intaan sidaa iraadaan sidaa u eegaaweeyay aan iraadaan ma aragta ninka diinta u diidaysay wuxuu yiri habeenkii masaajid soo qaatay lugaha iyo wax dhan buu noo doogaa wuxuu yiri wiilkii baan jeclaystay maalintii dambe soo socday apo very serious baan rabaa inaan kala hadlo waan maxay aabo sidii ma san waan jeclaystay wiilkii wuxuu aabo waxaan rabaa diinta inaad la soo gasho islaamka markaasaan dib u yara fadhiistay markaasaan iri buu yiri anaa fikiray buu yiri wallaahi diinta wiilkaaga sida u bedeshay ee sida ka dhigtay alla diintan inay diin tahay markaasaan ku yiri my son I am ready wuxuu yiri inanka intuu farxay buu igu soo booday oo ii dhunkaday markaasaan sidii ku waxaysanay wuxuu yiri shahaadada buu ii qabtay 3 maalmood oo tabliiq ii saaray jaamacad buu igu daray salaadii baa la soo baray haddana maalmihii baa la ii kordhiyay diintii baa xoogaa la iga soo baray waan soo noqday markaan ogaaday oo kutubna la siiyay inaan naag labaad guursan karo baan islaantii u tagay ayaa gabdho dawdiinta ogole ayaa dhagayso anigu diin cusub baan galay kowdhe diinta aan galay waxay ii ogoshay 4 inaan guursado markaa waan kula guursanayaa ogow markaas tiriyaa hayaa diintaada sidaa qabto gabadh baan guursaday muslimada
wuxuu yiri xaqeed baan siinaa waa u tagnaa hadiyad baan u geeyaa gabadhi baan waxeeyay dabeed wuxuu yiri shaqaalaha yagii iyo meeshii noloshaydii oo dhan baa isbedeshay tacliintaan ku qabanaa meesha warshad baan leenahay tacliintaan ku qabanaa shaqaalaha oo dhan waa nala baxaan waa isbedbedelaa mar 103 bari baxda marba 40 bari baa la baxda barwaaqo waa najaxnay waa liibaanay maalintii dambe islaantii ordaysa ayaa noo timid gab ayaa maxaa wax orodka anna halay muslimiyo waa laga jeedaa war hooy niman jaamacadda ku jira baa reerkii oo dhan sabab u noqday idinkuna sida aad yeeshaan ma aha waa habkiina dhaqanka aad ku dhaqantaan baa dadka ama diinta jeclaysiinaya ama ka fogeynaya waxaan idinku soo gabagabaynayaa ninka isaga ahaa wuxuu yiri muslimiin hadda maxaa qorshaha uu yahay baan wuxuu qorsheeyay waxa weeyaan 4 bilood baan baxsanahay bil waxaan joogayaa India 3 biloodna waxaan u socdaa buu yiri Germany aabahay wuxuu ku dhintay bil gaalnimo awowgay gaalnimo ku dhintay hooyaday gaalnimo ku dhimatay ayeeyaday gaalnimo ku dhimatay wuxuu yiri muslimo maxaad ilaahay xageebaad barito ka gali doontaan marka ay waxaas idinkoo nicmada haysta intaad meel la fadhiisateen aad tirahdeen dadka nicmada ayaan loo geeyno yaan la siinin xageebaad ilaahay ka gali doontaan maxaad ku hadli doontaan idinka sabab u noqday in aabahay maanta jahannamo ku jiro hadda waxaan u socdaa buu yiri adeerkay iyo adeeraday inaan ka gaaro inaysan jahannamo galin ka walaalay waxaan uga jeedaa idinka mas'uuliyadaas idin saaran tahay dadka aad la dhigataan waa population idinka badan weeyaan population kan inaad ku dadaashaan inama al-a'maalu bin-niyaat xitaa niyada keena niyada dhaqankiina hagaajiya dadkan haddaad habeenka ku duceysaan oo aad salaata leelka tukataan oo aad tiraahdaa ilaahayow annagu maanta waa dadaalo waa soo marnay waa akhlaaqdi wanaagsaneedna waa tusnay ilaahayow dadka kan hadaayada u fur oo waxay ilaahay waa u furaya